taliyaha ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland taliye Nuux Ismaaciil Taani ayaa markaasi ka warbixiyay dagaalkii maanta dib uga dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Taliyaha ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in markaasi ay diyaar u yihiin inay difaacaan qaranka Somaliland iyo xuduudiisa waa sida hadalka u dhigay, isagoo sheegay in maanta ciidamada halkaasi ku dagaalamay ay soo hooyeen guulo waaweyn oo wax ku ool ah. Haddaba maxay yihiin hadalladiisii uu markaasi ku aadanaa dagaalka maanta dib ugu qaaday halkaasi, maxaase ka soo kordhay, maxaase markaasi quseeyay dagaalkii maanta halkaasi dib uga dhacay, qaabka u dhacay iyo meelaha lagu bilaabay weerarka, yaase guusha raacday. Taliye Ismaaciil Nuux Taani ayaa markaasi ka warbixinaya, isagoo sheegay in oo markaasi ciidanka Somaliland guusha raacday. Intaana muuqaalka kula wadaagin waxaan si naxariis leh kaa codsanayaa haddii tan markii ugu horeysay ay channelka soo booqato fadlan subscribe dhoo gambaleelkana furo ku mahadsanidin. Aynu ku bilownay waxaanu ognahay markaasi in saaka aroortii ciidamada Somaliland ay markaasi dagaal toos ah ku qaadeen ciidamada huwaanta SAC ayagoo ka soo weeraray 3 meel sida dhanka Tuulo Samakaab, aaga Gooja Cadde iyo waliba sidoo kale duleedka magaalada Laascaanood. Dagaalka ayaa markaasi waxa uu ka bilowday 3 meel. Taliye Nuux Ismaaciil Taani ayaa waxa uu sheegay in dhammaan 3daas meelood oo dagaalka ka dhacay lagu jabiyay xoogga SAC, isagoo sheegay guusha inay raacday maamulka Somaliland, sidoo kalena ay sii wadayaan guulaha isdaba joogga ay soo hooyayaan ciidamada qaranka Somaliland waa sidoo hadalka u dhigay. Hadalkan ayaa ku soo aadayo ayadoo dhawaan markaasi caaqil ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo warbixin ku soo saaray in ciidamada SAC ay iyagu guul waaweyn ka soo hooyeen dagaalkii maanta halkaasi dib uga dhacay oo weerarkay lahaayeen Somaliland. Haddaba taliyaha ayaa waxa uu leeyahay annagu guul ayaan gaarnay, halka caaqilka ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolna uu leeyahay guul ayaan gaarnay. Labada dhinac ayaa markaasi waxay kala sheeganayaan guulo wax ku ool ah, ayagoo markaasi midba mid kale ku eedeeyay inuu guul dareystay ayaguna guusha ay raacday. Xaaladahan ayaa markaasi waxay uga sii darayaan xiisadii ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, ayadoo haatanna la diyaar garoobay markaasi maamulka Somaliland xuska 18 May ee sanad guurada markaasi gooni istaaga Somaliland. Haddaba maxay kula tahay daawad adiga, sidee baad u aragtaa guusha uu sheegay Nuux Ismaaciil Taani iyadoo haatan guul kale ay sheegteen SAC ana qabtaa in maamulka Somaliland uu guulo ka soo yeeyay dagaalkii maanta dib u qaaday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa muddo ku dhawaad 5 bil waxaa ka socda dagaal u dhexeeya maamulka Somaliland iyo ciidamada huwaanta SAC ayagoo ku dagaalamaya halkaasi oo midba mid kale ka wad sheeganayo uuna leeyahay guul ayaan ka gaaray dagaalkii aan la galay halkaasi. Labada dhinac ayaa waxay isku hayaan maamulkayga ayaa ka tirsan tahay iyo maamulkaaga ma ka tirsani oo waxaan hoos tagaa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xidhmada iga dulqaad iyo markaa dulqaadayo sidoo kale xoog baan kugu muquuninayaa iyo ma kugu muquuninayo. Waa markaasi hadalaha la isku haysto oo ismaandhaafka ka dhiliyay garaadada SAC iyo maamulka taliya ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa haatan wuxuu ku sugan yahay magaalada Burco ee gobolka Togdheer, asoo halkaasi u jooga markaasi inuu xaliyo khilaafaad kala dhaxeeya markaasi maamulka iyo waliba sidoo kale gobolka Togdheer. Balse wararka ayaa intaas waxa ku sii darayaan inuu u sii gudbi doono aaga Gooja Cadde oo ay ku sugan yihiin ciidamada Somaliland si markaasi uu sii ambaqaado qaabkii loo markaasi loogu dabaaldegi lahaa Gooja Cadde maalinta xuska 18 May. haddaba daawada ma kula tahay markaasi in xuskani halkaasi uu ka dhici doono ayadoo markaasi aynu ognahay in dagaal xoogan oo madaafiic iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan isla dhacayo oo weli ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, haatanna uu bilowday dagaalka. barta commentiga inoogu roob fikirkaaga waxa weeyaan wada kugu daalin waxa iskaga keen dhaxbaaya muuqaalka taliye Nuux Ismaaciil Taani oo ka waramay markaasi dagaalka dib uga dhacay halkaasi daawasho wacan. اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم. waxaa ogeydeen muddaba bishii koowaad ee sanadka laga bilaabo ilaa hadda in qalalaasa iyo dagaallo badan ay ka socdeen Laascaanood, taasoo qaswadayaal iyo niman argagixiso ay hawsha ka wadeen.
iyo dad kale oo shicib ah oo si xun wax loogu sheegay dagaalkaasi ilaa bishii January ilaa bishan May wuu socday maanta dagaalaha ka socda magaalada Laascaanood iyo tuulada Dhabansaar tuulada Dhabansaari 25 kiiloomitir bay galbeedka ka xigtaa laamiga Adhi Cadeeye ciidanka halkaas soo galay oo sodomeeye technical watay Dhabansaar wuxuu doonayay wadada inuu qabsado taakuleentana aw ciidanka ka jaro ciidanka qaranku ku xisaabtamay arrinta guluf buu kala hortagay saaka 6 subaxnimo ayaa halka la isku helay meel 6 kiiloomitir Dhabansaar u jirta la isku helay waa la jabiyay magaaladiina gacanta waxa ku haya ciidanka iyagina waxa u yaaceen ilaa tuulada la yiraahdo Balahara ayaa madaxoogii gaaray gurmado dambe oo dalbadeena wali ma soo gaarin halkaas la kala joogaa waxay ka bilaabeen markay dagaal ka ogaadeen bariga iyo galbeedka Laascaanood dagaal culus bay ka bilaabeen waana lagu jabiyay labadaba bariga iyo galbeedka qaybtiisa hore qaybaha dambana waan ogaan doonaa laakiin maanta waxa dhacay saddexda dhowrka dagaal galbeedka Laascaanood bariga Laascaanood iyo Dhabansaar intaaba ciidanka qaranku guul buu ka soo hooyay asaar ugu dhacaya dhimasho way dhacaysaa dhaawacna ugu dhacaya laakiin yaa guusha helay baa taala guul baa intaba laga gaaray waxaana uga jeedaan sidii carqaladeyn ay carqaladeyn sidii tukumay oo bay sii sheegeen inay wax ridi doonaan 16 17 iyo 18 inay wax ridi doonaan ay ku carqaladeynayaan 18 May untii unbaa hadda cadaatay ciidanka qaranku meel joogaba guul buu rajeynayaa waanu ku guuleystay ilaa inta uu galay waxaanu shacabka u sheegayaa in hawshay noo idmadeen oo aad difaaca qaranka inaan sideed u hayno daafici doona guul aan gaari doono